السلام عليكم أصحاب تقاليقة soo dhawaada kusoo dhawaada nalka official magacayga hani waaye asxaabay waxaa maantani wada hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo muuqaal laga soo duubay oo muuqaalkaas la soo diray oo ii soo diray wiil walaal iyo gabar abaaya ah oo ay dhaheen maamadan ayaa dhibaataysan nalka adoo dad caawinaya ku aragnay marka maamadan caawi marka waxaan ku aniga dadkaygan tusaya Soomaalida dal iyo dibad meel walba ay joogaan iyaga soo caawinaya hooyadan waa hooyo aad u dhibaataysan oo haysani wuxuu ku afurto hata Soomaaliyeed ma fahmaya wuxuu ka leesaa afrax weyn qaar wala qof afka oo maay ka saa u fahmi karo dadka kale ma fahmi karaan laakiin muhiimad ugu weyn waxay tahay maamadan in dhibaataysan tahay ee waliba ay tahay hooyo dhibaataysan qofkii caawiya waaba jirkaad ka helaysid aad waa ogtaa ana waa oga ma la isku sharaxayo laakiin aniga dadka aniga taageero especially channelkayga ku xiran nalka official waxaan si naxariis niga codsanaya in hooyada Soomaaliyeed ay soo caawisan codsiga iga tahay bariga iga tahay nambarkaygan ku soo qoraya in iga soo xiriirtii ani maamada meesha joogta lacagta uu geenay insha Allah markaasna muuqaal waan iga soo duubi doonaa waxa awoodin waa hooyo aad u dhibaataysan iyadoo hadlaysana daawada arka ani muuqaalkeeda aad iyo aad buu qeyrgelay laakiin muhiimadu waxay tahay maamada inay caawinaad ni weydiisanayso أنا باهنا وضلكم أنا لو بيجي دك دبيت الجرا هاي كالماي هنياي هاي كالماي هاي توقع وين الدنيا هاي توقع أفرلا هراب سلام يا هاي سته ها سلام انتمان معك لك أتوانسا دعاء سنتين بقولي ما فرتك الدعاء سنتين أنت قد قد جرت هاي كان ما وين الدنيا هاي انتبه إلهي يواري إلهي وددني الحمد لله شكر الله ولا إلهي قوي بين آدم يقوي أي هني هاي الجلال هاي ولاد كانوا سهلة دتك ولا ينك الجلال دتك ولا ينقص دتك معايا جالسين هاي سلام أنت دبجر معايا جالسين هاي سلام أنت هاي الجلال هاي بقولي تمي فرتك سلام أنت عليه